fadlan channelka subscribe noo dheh gambaleelka fur si ay kuu soo gaaraan fiidiyowyadeen aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada. Like, share, comment qurux badan waad mahadsan tahay. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan idin salaamay dhammaan walaalaha aan halkaan saaxiibka ku nahay. Waan idin salaamay, salaan qaali ayaan hawada idiin soo marinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Alxamdulillaah, ilaahay baa mahad leh. Ii kasa inaan mar labaad kusoo laabto aan fiidiyo idiin soo duubo. Dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa caafimaad sida anigaba u caafimaad qabay dinkana inaa idin caafimaad qabtiin aan idiin rajaynayaa. Soo dhawaada walaalahay qaaliga ah, waa walaashiin Xushma iyo mar labaad ku soo dhawaada channelka Xushma. Channelkiini waaye. Fadlan haddii aan ugu cusubtahay channelka subscribe noo dheh, like, share iyo comment qurux badan waayo anaga dhiirigelin ayay noo tahay. Adigana waxba kaama dhibayso waayo walaalka ha caawiso ama walaasha ha caawiso maho. Marka hore haddii aan noola joogteen asxaabtayda hore aad tihiin, idinkana waa ku mahadsantihiin. Waa idinkaga mahadcelinayaa daawashadiina iyo kumantidiina quruxda badanne. Maasha Allah, shukran ayaan idin leeyahay. Mar walbaba kama quusto kamana dahal inaan idin dhaho waa mahadsantihiin. Asxaabay soo dhawaada. Caawa maxaan idiin wadaa alaab yaroo maasha Allah oo idin cajabi doonto, aadna ka heli doontaan kana faa'iidi doontaan. Ila soo dhaweeya sidaan anigaba ugu faa'iiday inaa idinkana ugu faa'iidi doontiin aan rajaynayaa. Ila daawada alaabtaan. Haddii aad tahay dadka gacmahooda oo qalalan yahay, lugihii, gamcihii, jirkaadii oo dhan horta meel walbaba way kaa caawinaysaa. Haddii aad tahay dried skin oo dadka mar walbaba oo maqaarkooda uu qalalan yahay, alaabtaan way ku anfici doontaa. Waadna ka heli doontaa sidaan filaayo. Laana aniga kuma og waa ka helaysaa bishardi kuma dhahay. Laakiin aniga sidaan uga faa'iiday in adigana uga faa'iidi doontid ayaan ku rajaynayaa. Waana ka heli doontaanaan aniga filayaa sida ila tahay. Waxay aad ku caawinaysaa horta alaabtaan dadka markasta uu korkooda qalalan yahay oo auna lahayn duxa auna lahayn ama gamcihii ha ahaato ama lugihii ha ahaato ama jirkii oo dhanba ha ahaato oo kor qaleelka ka cabanayo oo dried skin-ka alaabtaan way idin anfici doontaa. Ka faa'iidaysta soona tijaabiya. Asxaabtayda horta halkaas waxaan ku haystaa waa Vaseline, kareemka Vaseline-ka. Saliidaas aan ku shubayana waa saliida xulbada waaye, saliida xulbada waaye iyo kareemka Vaseline-ka baaquligaas u soo qaadanaysaa. Sidaad aragtan ba aniga waa garaacaya maho waa isdhex gelinayaa. Laano Vaseline-ku waa saliid saliidana waa iyadana waaba saliid Soomaa. Marka labada saliidood ayaa la rabaa in ay isdhex galaan ee isqaataan. Si ay hadhowto u soo kala boodinaa la rabaa ay si fiican isku dhex galaan. Waxaan kaloo ku shubanayaa asxaabtayda qaaliga kareenkaas oo baby lotion-ka ayaan ku shubanayaa. Sababta aan u shubayana wax kale ma ahan. Vaseline-ki waa saliid, keeg waxaan ku darnayna waa saliid. Marka waxaan rabnaa lotion-kan inuu isku keen dhex geliyo oo nooga dhigo qabowna wuu kaaga dhigayo oo kareem qabow wuu kaaga dhigayaa. Vaseline-ka waa ogtihiin wuu kulul yahay oo waa kareem kulul. Waxa lagu sii daradana waa saliid. Laba saliidood isku noqonayaan. Kan baby lotion-ka wuxuu kaa caawinayaa inuu ku qaboojiyo oo kareem qabow oo degan oo jawi degan kaaga dhigo. Qodobka labaad oo kaa caawinayo waxa waaye ma kaa kala boodaayo oo hadhowto markii cabaar uu yaalo saliidii iyo Vaseline-kii ma soo kala boodayaan. Labadooda kaliya haddii aad ka dhigtad waxaa laga yaabaa inay soo kala boodaan ee saliidii ay soo kormarto kareemkii Vaseline-kiina oo hoos maro.
laakiin looshinkan wuxuu kaa caawinayaa in ayna kala boodin ee alaabtii si caadi ah ee isku qaadato oo kareem sidiisii inuu kusoo baxay la moodo ee kuu noqoto ayay kaa caawinayaa kareenkan looshinka ah. qodobka kaloo kaa caawinayana waxay tahay waxaan ognahay faasiliinka urna ma leh carafna ma leh, waa fahanteen. waxaa kaloo haddana ku siinaya waxaa mataqaanaa yacni udgoon carfayo ku siinayaa oo yacni hangartiisa ama caraftiisa hadba sidaa u taqaanaan yacni wuu kuu soo carfayaa. xabadsoodiyaana dhehina xulbadda saliidda xulbadda waa ogtiin hangaray leedahay oo way soo hangartaa, way soo shiiraysaa, way kaa dilaysaa. marka saliidda xulbadda waa ognahay oo xulbo waa la yaqaanaa mooye, marka xoogoona way kaa jibinaysaa. waxyaabo kalena waa u isticmaali doonaa laakiin hadda intaasaan idinla wadaagaya. wixii kaloo gadaal ugu dari doonana waad arki doontaan. maxaa caawa warkii aba igu dhegdhegooye asxaabi ka raali noqda ayaantaanana wax duubin, marka caawa warkii aba igu dhegdhegooye mooye. marka asxaabta qaaliga alaabtan sidaasaa isugu qasaysaa. maasha allah, horta gamcahaadii lagu haadan ku dhahay looma heli karan ku dhahay baby ilmo yaray kuu noqonaya bajaq mar walbaba oo jilicsan, iskiin yaroo jilicsan oo qurux badan ayuu kuu noqonaya jirkaadii. haddii aad qalay laheyd qaleylkaas wuu kaa tagsiinayaa. haddii aad dadka gamcaha yacni qallalanoo xididahooda waxyaabahaasi soo muuqda gacnihii gacno bucbuc ahoo qurux badanoo kuusanoo kaaga dhigayaa. oo xulbadda waan ognahay waxyaabaha oo yacni wax lagu koriyo inta badan waa loo isticmaalaa. faasiliinkan waa ognaa asigana wuu jilcinayaa jirkii, iskiin qurux badan oo jilicsan ayuu kaaga dhigayaa. xulbadiina iyadana sidoo kale iyadana maasha allah oo way kuu kobcinaysaa maqaarkaadii, waxay kaaga dhigaysaa maqaar ifaayo qurux badan oo kobocsan ay kaaga dhigaysaa. khaasatan dadka xididadooda soo muuqda aad ayay u anfacaysaa oo yacni xididahaas faraha badanna way kaa dejinaysaa. waadna ka faa'iidi doontaa alaabtan hala soo tijaabiyo oo waxtar fiican ayay leedahay. ma aha wax waqti dheer xitaa soo qaadanayo, isla markaas aad marsanaysid ayaad natiijadeeda ogaan kartaa. maxay kula tahay marka haddii aad wadid oo aad daa'imatid wax badan ayaa ka faa'iidi kartaa aanagi isleeyahay. wayna ku anfacaysaa dadka jirka qallalan leh, rag iyo dumar labadaba way isticmaali karaan. qof ay qaas u tahay ama ay gaar u tahay ma leh, qof walba wuu isticmaali karaa. haddii aad kiimikaal tahay iyo haddii aad natural tahay labadaba way ku anfacaysaa oo wax ay diideyso ma lahan, waxay ka hor imaanaysana ma lahan. ilaama inay ku caawiso ma ahane wax kaloo dhibaato kale difeeto kale kuu geysanayso ma leh. waayo fasiliin waa naqaanaa kiimikaal ma ahan. saliidana waa saliid iyadana oo dabiici ah oo dhir ka samaysan, dhir dabiici ka samaysan. maasha allah, marka way idin cajibi doontaa aniga sidaan rajaynayo, sidii aniga ii cajabisay. markastaba waxaan idila jeclahay walaalayga qaaliga wixii aniga aan ka faa'iido ama aan natiijo kasoo arko inaan idila soo wadaaga ayaan idin jeclahay, si adigana igala faa'iidaysataan oo ay la aragtaan natiijadii aniga aan ka gaaray oo idinkana ay igala gaartaan ayaan jeclahay. marka sidaas aldigeed ayaan idinkugu soo bandhigaa wixii aniga aan ku faa'iido ama aan sheeg wax siyaade ah oo aan ka dareemo, sidaasaan idinkugu soo bandhigaa. horta aniga aad ayay ii caawisay. mar walba waxaan ahay dadka oo dried skinka korkiisa uu qallalan yahay ayaa ahay. wax kastoo mariyo korkeyga wuu qallalan yahay. waa inuu jacjacna ma aha laakiin waa dareemaysaa yacni abaar inuu yahay camal aa ka dareemaysaa. alaabtan markaan bilaabo maasha allah mar kastaba jirkeyga wuu iska duxaya ahaan ku dhahay. xitaa haddii aad soo qubaysato yacni qubayska ka hor aa inta marsato aad soo qubaysato maasha allah saabuuntii waxyaabihii aa ku soo qabaysatay waxba kuuma dhimayaan oo jacjac kaama dhigayaan. jirkaada jir duxayoo noqonaya. korkaadi midda kale aa ka dareemaysa waxay tahay inuu maqaarkaadi ifaayo, maqaar ifaayo qurux badan oo ku siinayo dhalaalayo. marka muhiimadda horta waa saliidaas haddii aadan haysanin anigu waxay ila tahay inaadan waxba faa'iido ama natiijo aadan ka helaynin. waa saliidda xulbadda faa'iidada koowaad aan idinku haya halkaan.
baasiliinka asigana waa kusoo xigaa oo yacni jirka waa ogtihiin faa'iidada uu leeyahay inuu jirka jilciyo maqaarkii maqaar yaroo jilicsanoo maasha allah qurux badan kaaga dhigayo. asxaabteyda qaaliga hadda waxaan ku darsanaynaa waa cadarkaasaan ku darsanaynaa oo waan ku carfisanaynaa si uu caraf iyo udgoon noogu noqdo. waayo waa aragteen xulbadda way ureysaa oo way soo shiireysaa, yacni waxay leedahay shinif oo nooc kale ah ayay leedahay. marka haddii aadan cadarkan isaga darin siyaado ayaa lagaaga dareemayaa oo maxay tahay qofkan maxaa xulbo mu kusoo qabaystay ayaa lagu leeyahay yaa. marka waxaa isaga dari kartaa cadar aya nuuckii aa haysatid ayaa isaga dari kartaa oo ma ahan muhiim ma ahan cadarka aniga aan haysto inaa adigana haysatid. ina catar aa haysatid ayaa raadsanaysaa waadna ku darsanaysaa. waxa keliya uu kaa caawinayo waxaa waaye cadarka yacni urta oo kasoo baxaysa xulbadda in uu kaa jebiyo uu kaaga dhigo kareem caadi ah oo yacni sidiisoo dabiiciyo wax aa qasqastaba lamaba moodaayo markii sidaan aa samaysid kareem caadi oo sidiisa kusoo baxay ayaa la moodaa oo maba la moodaayaba wax adiga aa gacantaada kusoo farsamaysatay. laakiin haddii aadan isaga darin qofkii sidan kuusoo ag fariista ama sidan kuusoo ag maro wuu kaa dareemi karaa xulbadda urteeda. marka sidaan sameey waadna ka faa'iidi doontaa insha allah. aniga sidaan uga faa'iido adigana uga faa'iideyso ayaan ku leeyahay. mar walba iyo mar kastaba waa idin jeclahay walaalahayga qaaliga. marka waxaa aniga ka faa'iideyna idigana igala faa'iidiin waan jeclahay. igala faa'iideysta alaabtan soo tijaabiya soo arka alaab maasha allah korka looma heli karaan ku dhahay. waad arki doontaa waa wax yaroo fudud meel walbana waad ka helaysaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.